Do you want to know? Well, I've been thinking about you. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaan nala socotaan waa kunciil official. fadlan haddaad nagu cusub tahay soo dhawaa, subscribe saar, like, share, gambareetana furo saad u noqoto daawadaha ugu horeeya muuqaalada aan soo dirino. mahadsanid. haddaad u tahay habeenaha iyo haddaad ku tahay maalin, duhur, casr iyo maqrib, wax walba ay ku tahay, waxaan rajeynayaa in videon haddii aad daawanaysid si caafimaad leh aad ku daawanaysid. haddaad xanuunsan tahayna caafimaad eeba weyne ayaan kaga rajeynaynaa insha allah. xilligan waxaa noo barateen in aan soo dejino barnaamijteeni isboortista shanta hore Yurub waaweyn sida sare ee La Liga iyo Ingiriiska EPL-kaba. haddaynu ka hormarno horyaalka Ingiriiska, waxaa wada ciyaaray kooxda Manchester United iyo Bournemouth ayaa kusoo idlaatay 5-2 gool. kooxda Manchester United doorasho waxay ka kala heshay Mason Greenwood da'yarta dhahaan oo 2 gool ah, Marcus Rashford iyo Antonio Martial iyo Bruno Fernandes. waxaa wada ciyaaray kooxda Arsenal iyo kooxda lagu magacaabo Wolves. waxaa 2 gool iyo eber ku badisay kooxda Arsenal. doorasho waxaa ka heshay Bukayo Saka iyo Lacazette. sida ay soo ilaatay ciyaarta Arsenal. waxaa wada ciyaaray Chelsea iyo Watford. Chelsea ayaa ku badisay 3 gool iyo eber. Chelsea doorasho waxaa ka kala heshay Olivier Giroud, William Burgess iyo Ross Barkley. 3 gool iyo eber ay sida ku muquunisay kooxda Chelsea kooxda Watford. waxaa wada ciyaaray kooxda Aston Villa iyo Liverpool ayaa kusoo dhamaatay 2 gool iyo eber. waxaana ka kala heshay doorasho Sadio Mane iyo da'yarta la magacaabo Jones. kooxda Manchester City iyo Southampton oo wada ciyaarayna waxaa 1 iyo eber ka badisay kooxda lagu magacaabo Southampton. gool ay ka heshay Joe Adams. haddayna aadno dhanka iyo horyaalka La Liga, waxaa wada ciyaaray kooxaha Atletico Bilbao iyo kooxda lagu magacaabo Real Madrid ayaa kusoo idlaatay daqiiqadihii loo daldalay 1 iyo eber. waxaa doosha dhaliyay daqiiqadihii u dambeeyay ciyaarta goolkeeda loo dhigay Real Madrid kabtankeeda Sergio Ramos. ciyaarta sidaa ayaa 1 iyo eber kusoo idlaatay. Real Madrid duusha soo hanatay. Barcelona ayaa la sugayaa caawa 5 saac in ay ciyaarto. dhanka Israel aadnana waxaa wada ciyaaray ciyaartii laba sugay Juventus iyo Torino ayaa kusoo idlaatay 4 gool iyo gool. goolasha waxaa ka kala heshay kooxda Juventus Paulo Dybala, John Guardado, Cristiano Ronaldo iyo Eren Loma Rakitic oo ah gool oo Torino ka tirsan oo gool gama ka dhaliyay. 1 gool waxaa u dhaliyay kooxda Torino Andre Belotti ciyaaryahanka lagu magacaabo. aad iyo aad ayaan umahadsantahay daawashada videodan aad daawatay. haddii aad ka heshay videodan leesaar, waxaan kaa raaligelinaynaa haddaad ku caajistay ilaa waqti ay kaaga baxay qaran ka noqo. intaad ku tagi doono videodan lacayn barnaamijkan la mid ah, waa kunciil official oon idin leh samaha
lagu diyaaro isboortiska horumarkiisa iyo dhalinyarada doorkoodana la siiyo.